السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. qof walba dunida ku nool wuxuu ku fikiraa inuu ganacsi sameeyo hami ay yeesho iyadoo taa ay jirto haddana dad tiro badan baa waxa arkaysa oo meherada sameystay ama hal abuurnimo la yimaaday ka bacdi ku fashilmay hooshii ay hayeen. hadduu ilaahay yiraahdo videoga waxaan rabaa inaan kugu soo bandhigo 10 shay oo qofka guuleystaha lagu yaqaano ama astaan u ah qofka guuleystaha haddii ganacsi tahay haddii hal abuurnimo kaleeta ay tahay. kow guul darada waxay u arkaan wadada guusha loo sii maro. qofka guuleystaha wuxuu inta badan yaqaanaa wado walbo guul ah ama albaab walbo guul ah uu gaarayo inay ka horeyso guul daro. taa darteeda wuxuu xisaabta koowaad u ku darsadaa guul darada inuu sii mari doono uu sii mari doono guusha. labo inta badan dadka guuleystayaasha waxay isku xiriiriyaan ama ay ku dhex jiraan ama saaxiibo ay ka dhigtaan qof karti leh oo dhiirigeliya oo hobisiya waxyaabo uu ka qaldan yahay u sheega u naseexaya waxyaabo uu ku wanaagsan yahay u soo bandhig. dad guuleystayaal ah bay inta badan ku dhex jiraan guuleystayaasha. mar walba aad rabtid inaad guuleysatid waa inaad xeyndaabkaaga ama saaxiibadaada dadka aad la socotid ama dadka aad la sheekaysanaysid dadka fikradaha ka qaadanaysa waa inay noqdaan dad guuleystayaal ah, dad fikirkooda uu wanaagsan yahay, dad fikirkooda uu saxan yahay, dad fikirkooda horumarin ku keenaya. saddex waxay isbarbar dhigaan inta badan noloshii hore ay ka soo tageen iyo noloshii ay hadda taagan yihiin. bishii hore maxaa ku soo galay, bisha maxaa ku haysataa, sanadkii hore maxaa haysatay, sanadkan maxaa haysataa. waxyaabahan ayay isbarbar dhigaan si ay moral iyo wanaag ay ugu qaadaan wax mustaqbalka soo socda. qofka guuleystaha ah ama guuleystayaasha waxay xisaabaan maraaxisha ay ku jiraan. waa inaa qofku uu ogaada hadduu rabo inuu guuleystayaasha ku biiraa maraaxisha uu taagan yahay. qofkaanan aqoonin shalay wuxuu ahaa aanan aqoonin maanta wuxuu yahay ma aqoon karo berri wuxuu noqon doono. marka waa inaad ku dadaashaa haddaad rabtid guuleystay inaad noqotid meheradaada ama hal abuurnimadaada midka meel dhaliya aad noqotid. haddaad rabtid waa inaad ku fikirtaa oo aad xisaabisaa halka aad taagneed iyo halka aad maanta taagan tahay, halka aad shalay ka timid iyo halka aad maanta taagan tahay. afar waxa ay jecel yihiin in ay meheradooda ama ganacsigooda ama hal abuurnimadooda ay jawaab ka helaan, feedback wax la yiraahdo. kastabka inay weydiiyaan maxaa problem aad dareemaysaa, barnaamijkan see u aragtaa, maxaa qabtaa oo talo ah aad ka bedelaysaa. waxay raadiyaan inta badan jawaabo ku saabsan waxyaabahay dadka u soo bandhigeen. ogow qofka kastamka ku ah ama clientiga ku ah ra'yigiisa kaaga muhiimsan ra'yiga adiga kugu saabsan ama ra'yiga adiga aad la timid ama ra'yiga shaqaalaha ay la yimaadaan. ilaa qofka wax ka iibin doontid waa kastamka sidoo wax u arko waa in la weydiiyo. mar walba uu baxayo qofka wax ka iibisay mar walba uu baxayo waa inaad ogaatid aad ku dadaashid feedback ay la soo yimaadaan kastam. waa inaad meel ku qortaa kastamka waxyaabaha ay la yimaadaan ra'yigaasa wuxuu yahay mid guuleystayaasha ka dhigaa guuleystayaal. mid shanaada waxay tahay ganacsiga uma abuuraan guuleystayaasha inay ka ganacsadaan. marka koowaad waxay u abuuraan inay problem jiro ay xaliyaan. problemka jiro markay xaliyaan kadib baa waxay imaanayo lacagta ay imaanaysa ama ganacsiga inuu miro dhalo ay imaanayso. laakiin markuu u horeyso uu fikirayo uu barnaamijkan rabo inuu qabto hal abuurnimada uu la yimaado ama ganacsiga uu la yimaado wuxuu ku fikiraa maxaa problem oo jiro oo loo baahan yahay in la xaliyo, maxaan aniga xalin karaa. markuu xaliyo kadib bay lacagta imaanaysaa ama ganacsiga inuu kor aado ay imaanaysaa. laakiin markuu u horeyso wuxuu ku fikiraa qofka problem jiro qaabku u dabooli lahaa. hal abuurayaasha guuleysta waxay ku fikiraan xalinta mashaakilada laakiin ganacsi jira ma soo guuriyaan. lambar 6 xiriir fiican ayay la sameeyaan hal abuurnimadooda ama ganacsigooda dadka nooca oo kale leh. xiriir fiican ay la sameeyaan, fikradaha kala qaataan, niyad cadaawad ah ama niyad xun kulama dhigeystaan, kulama sheekaystaan. fikir wadaag inay yihiin, horumarkooda inay ka wada shaqeeyaan ay ku dadaalaan. lambar 7 waxay tahay guuleystayaasha ma aha dad wax koobiye, dad xirfadaha dadka kale ay leeyihiin koobiye ma aha, dad soo koobiye ma aha meherada dad kale ay leeyihiin, hal abuurnimo dad kale ay leeyihiin, sidoo kale ganacsiga dad kale ay leeyihiin ma aha dad soo koobiye. ka sideedaada waxay tahay dhaqaalaha ka soo galo xirfadooda ama hal abuurnimadooda ama ganacsigooda waxay u isticmaali doonaan mar kaleeto xirfad kaleeto
ama taa ay ku kubcin doonaan ma aha mid ka bixinaya dhaqaalaha intay bixiyaan mid ku madadaalayo ama qaab kale u isticmaalayo meel ay ku dhamaanayso lacagta mid u isticmaalayo ma hadda darabtid guuleystay inaad noqotid waa in dhaqaalaha ka soo baxa hal abuurnimadaada aad ku celisaa mid kale oo dhaqaale meel kale aad gelisaa dhaqaalahaas ka soo baxa waa in ganacsiga aad ku celisaa ma aha inaad u isticmaashid madadaala u isticmaashid inaad gaari ku isticmaashid kaba soo qaad waxyaabo aan muhiim ahayn ama meelo aan dhaqaale kaa soo gelaynin oo u isticmaasho ma hal abuurka guuleysta waa kan dhaqaalaha ka soo baxa meheradiisa ku celiya ama meherad kale ku hagaajiya tan sagaalaada waxay tahay hal abuuraha guuleysta ama ganacsadaha guuleysta ama dadka ka mira dhaliya guusha hal abuurnimadooda waxa weeyaan dad dhiirigelin badan waxay dhiirigeliyaan shaqaalahooda waxay dhiirigeliyaan qof walba ay kulmaan oo ganacsiga ra'yi ka weydiiya dad dhiirigelin waxa bilow dhaqaaji hebel oo imaana ra'yi u keena wuxuu ku leeyahay niyo intaan haysta waa lagu bilaabi karaa hore u soco nashqad saxan ama qorshe saxan ayuu la dejinayaa oo lillaah ay ka tahay hore u soco ayuu leeyahay dad dhiirigelin badan xaasinimadana ay ka fudatay tan tobanaada waxay tahay qof wax akhris badan wax akhrintoodu way badan tahay dadka guuleystayaasha wax akhrintaada markay badan tahay mar walbo aqoontaada ay kor aad weeyaan guuleystayaasha 10ka ku dhaqma 10ka caado ama 10ka hab dhaqan laga helaa weeyaan guuleystayaasha xaqiiqda ah